iyadoo maalmihii u dambeeyayba la soo afjarayay shaqooyin ka taagnaa gobolka Sool koonfurta gobolka Sool ayaa waxa wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir iyo wasiir dowlaha madaxtooyada mudane Maxamed Muuse Abees gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdi Khayre Dirir uqaasha iyo waxgaradka labada beelood ee koonfurta gobolka Sool ee dhawaan shaqaqadu ku dhaxmartay salaadinka kala yimid gobolada dalka ayaa u ambabaxay deegaanada labada beelood ee deegaan ee koonfurta gobolka Sool wafdigan ay kamid ahaayeen guddiga nabadeynta labada beelood salaadinta ka yimid gobolada dalka hoggaanka saraakiisha ciidamada militariga iyo bilayska ee socdaalka nabadda u aaday koonfurta gobolka Sool saaka usbuuc sabtiya waxaanu taaganahay kooni magaalada Laascaanood wafdigan ballaaran ee hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayna kamid yihiin wasiir dowlaha madaxtooyada salaadiintii guddiga dhexdhexaadka uqaashi labada beelood waxay u ambaxayaan inay soo dhameystiraan taabagelinta nabadeynta iyadoo ay naga horeeyeen orgooyinkii kale ee labada beelood socodkaygu saas u daaray bidmilaahi kariim sida uu gudoomiyaha gobolka uu sheegay halkan waxaanu ku taaganahay wafdi ballaaran oo u socda dhinaca hawdka bari magaalada Laascaanood dhinaca bari uga ambabaxay deegaanada ay degaan labadii qoys ama labadii reer ee aanu halka kan muddada ku dhexdhexaadinay ee hawlahooda colaad muddada badan dhexteelay ee colaadaas la soo afjaray oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Laascaanood waxaanu imika u baxaynaa annagoo salaadiin wasiiro culamaa u diin ciidamada iyo saraakiil waxaanu u ambabaxaynaa inaanu labada beelood deegaanadoodii tagno labada beelood deegaanada ku kala qaxay oo ku kala fogaaday inaanu deegaanadoodii isugu celino inaanu iyagii isdhex dhigno inaanu halka beerkooda burcad isu marin haddana halkaan joogna waa ceeljeex waxaanu u soconnaa waa wacyigelintii nabadiintii ka harsanayd ee halkan aan idinku marnay bishii hore annagoo ka koobnayn mataqaanaa ergooyinka labada reer markaa socodkaygu saasuu daaran yahay qof walowba qofka kale gaadhsii waa laydiin sheegay sidii wax u dhaceen iyadii wixii laga soo qaaday waa laydiin sheegay dhaawaca dawladdu iyo culimadu waxay tidhi hadda keena annaga qabiilka ay naga timid inayn dee badidoodba sinmayn ama maqan yihiin ama qaarhindiya ku maqan ama toobiye ama dhaawacaan biskoo yihiin ama ayan joogin annaga labada bilood qabsadayna iyagu nooma qaban iyagu waxay jeclaayeen in hadda wuxuuba israacaan shacabka iyo magaalooyinka iyo odayaasha waxaa la isku raacsan yahay inaan magaalo kale la bilaabin tan laga bilaabin gobdheero laga bilaabin meel kale laga bilaabin taa waa la isku raacsan yahay waa ogeysiis waxaan kaloo ku darayaa halkan dhagaxa kan sidii loogu kala qaxay waa lagu kala maqan yahay hadda wixii laga bilaabo maanta aynu joogno oo waftigeedu idiin tibi wixii khayr cabdi oo geedgal halka ku lahaan jiray iyo wixii ka maqnaa waa ku soo hoyanayaan meel xasan adaa meesha iikaad adaa oday ka meesha wixii khayr cabdi ahaa wadada la maraya ammaankeeda iyo khayr cabdiga meeshan ku lahaa geedgalka wixii maanta laga bilaabo nin wala meeshiisu imaanaya 8 bilood baan siid ku jiray oo booshu dhexdeeda ku xidhnaa dawladda iyo odayaasha iyo intaas oday oo tolkaya adaan nabad heliyo maanta u baahana وبرخ عمر أحمد الباينتي قرن كجمهورية الصوماليلاند deegaanka saxdheer ee gobolka Sool